kula jawaana wanaagsan daawadayaal halkan waa garoonka Stadium Muqdisho waxaad ku soo dhawaataan tibintan oo qayb ka ah tartanka xidigaha guuleystayaasha Ramadan Cup degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir waxaana kulankan isaga rimaanaya FC Tanga oo ka socota degmada Warta Nabadda koobkii fusalka Warta Nabadda ku soo guuleysatay iyo waliba FC Horseed oo Xamar Jajab iyadana ka socota waaska qaybta koowaad ee ciyaarta tiimka FC Tanga ayaa sameeyeen labarka 10aad tiimka Horseed ayaa duulaana banaanka ayay kubadaasi aaday wala soo tuuray kubada Saddam Monokhon wala soo gudiyay markan meel fiican ayaa la soo dhigay wow fantastic goal 1-0 Saddam ayaa shabaq gaaray ciyaartooyda tiimka Horseed waxay dhaliyeen goolka koowaad ee ciyaarta waxaana shabaq gaaray Saddam tiimka Tanga waa laga dhaliyay iskalaada ma koona ay soo sameynayaan tiimka Tanga way soo tuureen ma noqon goolkiibarka ayaa qabsaday wala soo tuuray kubada ma aysan noqon Sayid 1-1 gool ugu dambeeyay Bulsiyan khiyaano badan oo taraarax ayuu ku barbareeyay Ciraanka lambarka 3 ee lagu magacaabo Sayid Omar gool wow birta lambarka 5 ayaa kubada heystay isaga duulaana waa la soo tuuray gool ayaa tiimka FC Tanga banaanka aad waa gool kick waa kan markan Saddam aysan noqon penalty rigor ay helayaan ciyaartooyda tiimka Horseed waxaana lagu helayaa tiimka FC Tanga Abdi Malik waa u dhaliyay 2-1 laba gool iyo gool ciyaartooyda tiimka Horseed ayaa mar kale hogaanka ciyaarta la wareegay markale ayaa Horseed hogaanka ciyaarta la wareegay FC Tanga markale ayaa hogaanka ciyaarta la wareegay meel fiican markan waa kan haye oo goolkii saddexaad 3-1 saddex gool iyo gool FC Tanga ugu dambeyntii waxaa moodaa in la qaarijiyay ama la xasuuqay lana qoysiyay saddex gool iyo gool goolkii saddexaad ee ciyaarta ayaa laga dhaliyay Horseed ayaana dhalisay goolkii saddexaad ee ciyaarta ciyaartina sida ay ku soo ilaatay ciyaartooyda tiimka Tanga tartanka way macsalaameeyeen halka tiimka Horseed ay soo gudbeen timintii taas ku wareegta nabadgelyo